بسم الله الرحمن الرحيم هل كان waxa lagu qaban doonaa xaflad lagu soo dhaweynayo ugaaska beesha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi daawasho wanaagsan daawada ugaaski goodo ugaaski gigo bartoori dadku ugaaski gigo ugaaski goodo bartoori dadku قدغرسدو قلقترو دورنا باديو قدغرسدو قلقترو دورنا باديو قدغرسدو قلقترو دورنا باديو قدغرسدو قلقترو كيدي قد ما كذا كرسي قروالين داوان كل هذا الكينان يسري وادي كشورا كما هذه كجتا كشورا بس كماتا أو إنه ويمدي شرفنا إنه يلنا يسقوا إنه صومري إمارات كعربتها دمانتي بينتو كوبي هاي إنه قاصف عن سود ويننا سوق سوحنا كلنا أي سودو قام فرن في سودو انت وحي كدنبيا سي aynu si fiican barnaamijkeenu wuxuu aanu bilaabano oo aynu ummad islaam nahay aayadaha quraanka inaynu ku bilaabano oo khayrkii iyo barakadeena ina siiyo sheekh barka bayno akhriya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم إلهي وإنه أنفع آياتها قرآنك وحن إنك دتكين الإمارات كتشوغان دت وقاس كان أنو شيغنا دت كهذا الير أو أن ميديا يدي بدها هذا الله اللي نجا بدين هاي لكن تهياله أيام نهاي فكرة وأنا أكثر إنك يمادان وأنا نيار نهاي أنت كله هذا هو بنسفي عن نجوا شرحتنا لكن يمكن حنجعلها هنا كسر دويو شيخ حسين صوفي marka ugu horeeya marka meel la isku yimaado waxa la isfaro waxa ugu wanaagsan alla ka cabsi markeena hore wayna horta marka ugu horeysa alla ka cabsiga ilaahay aan badinaa mar labaadkana waxa weeye kontonkii sano ugu dambeeyay beesha Samaroon ku ay kala daadsaneed ninba beel baa lagu faqanayay midnimadeennii baa luntay dadnimadeennii baa luntay karaamadii baa luntay taasina waxa ugu wacnaa inakoonan magac yeelin inakoon ugaaskeennii hawna jirin inakoo taariikhdii aan lahayn iyo xadaaradii aan lahayn ballaadhnayd hay luntay niyo marka magaca guud had ilaaliso eed adkayso iyo magaca hoosna wax noqonaya laakiin magacii hoos oo aan waxba noqon magaca guud oo aan waxba noqon magaca hoos waxba ku yeeli maayo marka ugu horeeyo waxa weeye midnimadeena inaan ilaalino wa'tasmu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu markaan gacan kaliya noqono isku duubnaano dareenkii tolnimadu ina galo markaasaan magac beelaha kale Soomaalida ku yeelanayna laakiin niba meel haduu ka rooro ma jirto marka midnimo la helo iyo tol la hela tol marka la helana tamar iyo waxa la helaa talo intaas maqan tahay waxba lama helo inuu hadalkeenu ugu dheerayn maayo nin kasto Samaroona khaasatan dhalinyarada imaka aan xanuunsanayn ee caafimaadka qabta ee Samaroonnimadu ka dhaadhacsan tahay
waxaan leeyahay halkaa ka sii wada sii adkeeya odayaashayadii horena waxaan leenahay ilaahay toobadda hana waafajiyo oo tolnimada hanagu soo celiyo inta waxay raaca waxaan soo dhaweynayaa ugaaska waxaan leeyahay waxay wadadii waa dadkaagii waxaan leeyahay ilaahay ha kaa dhigo ugaaskii beesha Samaroon isku keenayay ururinayay go'aan adag oo cad goosanayay gar wanaagsan oo cadaalad ku sugan sameynayay gacantiisuna ahayd deeqsi ahayd taasoo aad tixraacayso awooyaashaadii hore sidii ay sameyn jireen waxaan leenahay ugaas jiro oo jooga ilaahay ha kaa dhigo dhammaanna waxaan leenahay ummadeenna Samaroonka oo dhan dad isku tashaday oo tala oo midnimadooda ka shaqeeya ilaahay ha naga dhigo waxaan imika ku soo dhaweynayaa walaalkay Saciid Cabdilaahi Iimaan oo isaguna laba ereyna yiraahdo oo wanaagsan horta marka ugu horeysa waxaan aad u soo dhaweynayaa ugaaska oo aan ku soo dhaweynayo Imaaraadka mar labaad waxa aad mahad u leh dadka faraha badan leh ee ugaaska u yimi ee rag iyo dumarba leh si ay u soo dhaweeyaan sida runta ah de markii horeba waynu jirnay oo ummad Samaroon oo jirta baynu ahayn laakiin waxay naga dhinnaa hoggaan ummaduna haddayna hoggaan lahayn way halaabaysaa maanta ilaahay hoggaankii buu ina siiyey hoggaanka markaad haysato meel laga maamulo waad ka dhaqaaqi kartaa waxaan anigu leeyahay Samaroonka ugaasku kalidii waxba ma qaban karo ugaaska haddaan la isdaba taagin oon wax walba lagu daba joogsan markaa unbuu wax qaban karaa ilaahayna waxaan ka baryayaa ugaaskii aan ku degno inuu ilaahay inooga yeelo waxaan anigu hadalkay ku soo dhammaynayaa in rag iyo dumar la isbarbar taago ugaaska oo aynu midowno wuxuu nasiib ku leeyahay maanta innaga oo Samaroonkii midaysan iyo isna maamulkii gacanta inoogu qabtay marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan waxba inaga xumaan wassalaamu calaykum Saciid aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa kale oo ugaaska u sheegayaa ay dadka halkan jooga isagoo ah gudoomiyaha gudida Imaaraadka ee jahliyadan maamulkana waday gudoomiyaha iyaga u yahay waa mahadsan yahay waxaan imikana ku soo dhaweynayaa oo isaguna inta ay kala gubaabina siinaya Maxamuud Xasan Saad Saajid marwooyin iyo mudanayaal waad mahadsantihiin sida sharafta leh ee aad uga soo qayb gasheen kulankani aan ku soo dhaweynayno ugaaskeen ugaas soo dhawo marka hore waxa weeyaan meelo badan lagu soo dhaweeyay way jireen wax kala soconay meediada qaar aanu joogay oo booramana way jireen waxa weeyaan halkan waa markii noo ka horeysay waxa laakiinse intani iyo inta naga maqaniba qalbiga way kala socdaan waxa weeyaan hadaba ugaaska dhowr goor oo meel ka hadlay waanu joogay waxa weey fishankiisu waxa weeyaan gadabus inuuna wax noqon karin ilaa uu ka xoroobo dhaqaalaha qof xor ka haynina waxa weeyaan xor ma ah taasaan u soo joogay isagoo go'aabinteeda dhowr goor wada iminkii haatan waxaan anigu idin oran lahaa badin maayo hadalka walaalayaal dadkeennu mar haddii maanta maamulkii aan haysanno waxaa habboon si qurux badan waxyaabaha moogtahay waddankeenna horumarintiisa moogtahay keeni kara inaan isku daba taagno isaguba uu soo barkoostay taasina waxay ku iman kartaa dadku ha yaraadaan ha bataan haddii isku duubnaan iyo commitment hadday jirto oo dadka ku dhan ay u mid yihiin hadday in yari committed noqoto waxa mahagan in committed aan wada noqono oo dadaalka la badiyo oo waddankeennii anigu dhowr goor horena halkan waa ka hadlay waddankeennu wuxuu u baahan yahay in aan dhaqaale u samayno inta maanta dhaqaale u samayn karaysaa
waddankii waad ogtihiin waddan faqiira weeyaan waxa ma yaalo inteenna halka joogtay inta dhulka kala joogta hadday gacmahan isqabsanno dhaqaalaan u samaynahay dhaqaalo markaan samaynana dadkeenna unemployedka ee bilaa shaqada iyo abuurmaya haddii laakiinse taa aan samayn weyno oon always had iyo jeer dhidhaqno ra'yi unaan keenno wax ficilaan daba raacin weyno dee waxba hagaagi maayo ficilkuna wuxuu ku imanayaa war aan baranna sida dadka kalaba sida wax layskugu darsado ama shakhsi ha noqdo ama gruub ha noqdo dadkeennii waa bilaa camal shaqooyin yaryaroo moog tahay somalilan way jirtaa shaqooyin yaryaroo meelaha hay-adi iyo xoogaa mucaawinayna ka yimaado waxay naga soo gaaraan anugu maahay waxa weeyaan markaa haddaba innaku inaan isku tashanno oo dadkeenna shaqo waaba shantii qofba hadday isku biiraan wax xoogaa waxay sameeyaan 5 6 7 8 bay moog tahay shaqaalaysiinayaan intaasina reero yaa ku xidhan saasaan wax ku noqon karnaa haddii laakiinse ra'yiga una keeno oo aanan wax ficilababa awna jirin always ra'yi badan uma keeno waxaa ma socon iminkii haatan waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaah war aan dhaafno waxaanan qabanno markaan iskula imaanno waan idhaahno laakiinse waxaanan qabannay haynaga yimaado ugaaskii waa maanta waa unitigeenna free unitigeenna aan istaba taagno ummaddeennana sidii aan noloshooda kor ugu soo qaadi lahayn aan ka shaqayno oo practical inaan meelaha markaa isku imaanno u sheekayno maaha iminka waxaan u yeedhayaa cismaan abtidoon oo laba kelmadood oo wanaagsan isaguna ina yidhaahda halkan waxaan u soo joogsaday inaan ugaaska anigu u duceeyo oo aan ugu duceeyo inuu ilaahay arrinta aan ka doonayna la qabto waayo annagu cabasho badan tabasho badan baahi badan dhibaato badan baan dareensannahay oo nagu jirta intii muddo ah wax kalena uma dareensanina waxa weeye dadku wuxuu jecel yahay marba dadka kale ee walaalihii halkay marayaan inuu ka qiyaas qaato oo ula socdo si samaha iyo wanaaggu ay u bataan marka annaga laba arrimoodba waa naga xun yihiin siyaasadda iyo dhaqaaluhuba waa naga xun yihiin halkaa waa inaan u hellaa haddaanan hore u samaysanna waxaan marin lahayn cidina waa inaanay noo diidin halkaa inaan wax marayno haddaynaan taa samaysan karaynin haddaynaan taa samayn karaynin albaabkeedii hayn iyadoo sharaf iyo wanaag iyo walaalnimo aan ummadaha aan walaalaha nahay kula wada noolaanayno haddana halkaa inay cidina qabato rabno waayo waa dhimanaynaa halkan sidii aynu ugu heli lahayn xornimo gaara oo ay mudan tahay ayaan ka filinaa ugaasku inuu noo horseedo oo uu noo guuriyo meesha ilaahay waxaan ka baryayaa inaan helno qiyaadad heerka ay ummadda aan wada dhalannay een isdhallay ay joogaan arkayso oo haddaynana dhaafsiin karinna na gaadhsiisa saasaa waxaan nagaga ba'ayaa waxyaabo fara badan ilaahayna waxaan ka filayaa inuu ogaaskana ka dhigo midna wada arkaya dhammaantayo from corner to corner dadka walaalahayana wanaag iyo isjacayl ooga soo jiidaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu iminka waxaan u yeedhayaa odaygii imaaraadka odaygii joogay xaaji cumar ibraahim marwo iyo mudanayaal qof yar iyo qof weyn waxaan inigu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum intaa dabadeed haddaan ka gudbo nasiibka ilaahay ugaaska inoo keenay ee intii aynu kala daadsanayn wixii aynu lahayn inoo soo celiya baynugu mahadnaqannaa sababtoo ah reerka samaroonka laydhaa kolkay boqortooyadu jirtay ta sagaalaad baannu ahay kolkii ay baabadayna waa lala burburo dee boqortooy oo dhan iminka badankeeda wuu burburay ha ahaatee nasrigiibaa ilaahay iminkayna siinayaa waxaanad idin leeahay
wax kastoo adduunyada la soo qaado siyaasad hadday tahay iyo si kasta hadday tahay dhaqaalay doonaysaa dhaqaale la'aan waxbana ma socdaan kolkaa idiguna rag iyo dumar dhaqaalaha sidee ma garanaysaa saylcad u dhisaseen ugu talagalaa taasi waa ta haddii taasi aan ka gudbo waxa weeye innagu waxaan u malaynayaa halka rag iyo dumar waxaynu ka fikirannaa meel gaaban dadku meelo dhaadheer bay ka fikirayaan ilaahay labadii wax lagu taransanayay samaroonka wuu siiyey haddaba labadii han ka faa'iidaysan aqli fiican baa ilaahayna siiyey cilmina innagaa maanta soomaaligu cilmi roon haddana kama faa'iidaysanayno waxaana maxaa biinayaa karti baa la doonayaa waxaana la doonayaa hurid baa la doonayaa oo gacantoo furan baa la doonayaa oo baahido wax baahida adduunyada ka xumi ma jiro waa cadowgu waa gaajada inta dadkeenni aynu gaajo ka hiri karanno ee ka wadi karanno haynugu dhaqaaqno oo ilaahay hayna waafajiyo oo nin walowba sidii aad wax ugu qaban lahayd halkii aad ka soo jeeday sida ummadaha kale hanu qabsanno taasaan idin leeyahay assalaamu calaykum waan idinkaga baxayaa ogaaska horta mid baan u sheegayaa imaaraadka rag iyo dumarba waa dad u soo jeeda una soo heegan inay wax u qabtaan dadkoodii soddonkii sane ama last 3 decadeskii aan soo dhaafnay imaaraadku meel bidhaanta oo hadday noqoto xitaa waxqabadku haddaanu xagga lacageed ahayn fikirkoo qura ah meel uu ka yimaado oo ku wanaagsan ayay ahayd waxaanu ahayn meesha qura ee ay jahliyadaha kale oo naga fara badani ay as a reference soo weydiiyaan haddii ra'yigoogu inuu wanaagsan yahay kale war wixii niibaa fiicnaaye maxay idinugula qabtaan tusaale yaroo gaaban baan inta hore way fara badan yihiin oo de waxa aanu ku dhaqaaqday ee jahliyada imaaraadka ka soo baxaana markii waa wax inaga oo qura inoo dana maaha waa wax u dana dadka kale inala degan iyo dadka dariiqa halkii dariiqo kale aynu samaynay maraya jaamacaddii camuudeed ee halkaa laga bilaabay initiative-keeda ee ay sababta u lahayd imaaraadku maanta koonfur ilaa iyo Ethiopia iyo xagga gudaheennaba dadka wax ka shaqeeya wax ka dhiga ee dadka wax tusaa waa dadkii ka baxay camuud initiative-keeda ugu horeysay ee imaaraadka lahaa waa wax markaa u wada dhexeeya dadka talabaad ee ku xigtay fikradii ka soo baxday inkastoo dad fara badan la wadaagayo dadkeenoo dhalinyarada la wada wadaagayay dariiqii u dhaxeeyay boorama ilaa dilabuha fikradeedii sadana way hirgashay inagu nima marnay boqolaal dad oo kale ayaa mara waa wax lagu yadna sharaf la oo wanaagsan mid saddexaad ayaa jirtay oo aan ku jirnana socotana ilaahay nagula qaban kabo jaamacad harawa oo aanu ula tagnay maca dawladda Itoobiya oo socotay oo dadkuna wada maqleen website-kan aad ka aragteen ilaa imikana way noo socotaa ilaahiyadana oo dadkeeni eeriyada wada deganaa ay ka faa'iideystaan waa fikrad iyaduna imaaraadka ka tab soo baxday marka waxa soo dhana ragoo kaliya ma ahayd dumar wanaagsan oo fiican oo shaqeeya oo nadaba taagan ama naga horeeyaba sometimes ayaa iyaguna jooga waa la yar yahay marka ay fikirka noqoto iyo wax isweydaarinta in araala kala samaysto dad inteena waaweyn ee dibadaha meel kasta looga yeedho wayna soo weydiiyaan wixii laga yeeli lahaa ama wixii laga qaban lahaa wixii fikradeena ku haysanana waanu siinaa example-kii ugu dambeeyay waxaynu ku faraxno oo wanaagsan waxa federaalka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliyeed ee weyneed ee gabigeenba wada garanayno loo doortay Dr. Abdurrahman Beyle inuu wasiir khaarijiye ka noqdo
وأن المقعو أينو كلنا هاي مالنتي isaga oo ay doorashada u taagan oo saddex mansab ay la doonayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba haddana meelo fara badan baa lagaga soo qaaday campaign dadkii ugu horeeyay ee uu la tashaday ee uu la soo hadlaa waxay ahayd dadkii imaaraadka joogay rag fara badan oo halkan jooga oo ay ka mid ahaayeen aanan magacyadooda imika sheegaynin laakiin fikrado fara badan habeen iyo dharaar kama naaseexan sidii u hirgeli lahayd inuu dadka campaign-ka u galay in laga joojiyo in annaguna wixii campaign aan u gali karnay ee uu ku yimaado taladeeda imaaraadka dadkii ugu horeeyay ee ku dadaalay ee ku soo saaray ee isaguna aw ilaa imika noogu mahadnaqayo inuu dhabigeena ugu mahadnaqano magacay noo soo kordhay oo wanaagsan oo facekii Soomaaliya ee ugu horeeyay ee ugu weynaa u yahay marka ugaas waxa weeye dadka noocaasa ayaa halkan wadankan jooga way yar yihiin dad fara badan waanu aan jirnay laakiinse waa dad dhinac walba wax u kala saaran qabiil iyo sheeko hoose naguma jirto mana taalo waxaad ku faraxda weey waxaan soo u yeerayaa imika Jamiila Dambiil waxaan salaamayaa ugaaskayaga sharafta leh iyo walaalaha iyaga soo iyaguna jooga rag iyo dumarba salaamta islaamkaan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugaas waxaan ku faraxsanahay maanta xudurkayaga had noo timiday ugaas sharaf leh oo aan aad ugu baahanayn oo magac leh baa tahay oo aad u sugaynay waxaan ka rajaynaynaa inuu qadamkaagu qadam khayr qaba noo noqdo oo shacbigayagu shacbi is haysta ay noqdaan walaalo isku xidhan aan ahaano sida maanta aan isku nahay waxaan idin weydiisanaynaa ugaasyada iyo suldaanada iyo indhargaratada iyo mutacallimiinta inay nahor galaan oo dalkayaga wax nooga qabtaan oo annaguna garab gallo sida ay tolku iskugu xidhmayaan ay iskugu kaya xidhaan yaanu idin weydiisanaynaa imikana waxaan u yeerayaa Xaliimo assalaamu calaykum ugaaskayaga sharafta leh iyo xuduurka oo dhan rag iyo dumarba salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وبعد هذا كي مرتلة با مهم كبدان أو لا يسكا ودا وحبا تاري مايو marka ugu horeysa waxaan idinku hambalyeynaya fadhigan sharafta leh ee ballaadan inuuna noqonkii ugu horeeyay oo lagu kala dhaqaaqay ugu dambeeyay laakiin uu noqdo kii muddo dhaliya oo ummadda ka soo jeeda iyo dadka muslimka ee Soomaalida oo dhanba wax u wada taro nafciya oo lagu sii wado isagoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qowlkiisa ku yiri isqabsada gacmaha واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا sidaas daraadad inagoo ka duulano dad islaam ah ummadina haday danteeda ka tashato oo danta daaqilkeega ay ka tashato maaha bimacna inay dad kale wax u dhimayso waxa laga yaabaa horumarka inagu aan gaarnay inay dadka kalena inala anfacsanayaan haday noqoto waxbarasho haday noqoto dekad la dhisto haday noqoto maamul kale haday noqoto waxbarasho kollay meeshii hore u marta cid kasta way ku noolaan kartaa oo amni ah oo dadku ay ku wada noolaadaan ay ka wada dhaqaaqaan marka waxaan ka codsanayaa ugaaska sharafta leh iyo wixii salaadiin iyo waxgarad rag iyo dumarba waxay tiraa mahmaa carbeed baa tiraahdaa nin kastoo cadiimaba gabadh cadiima ka dambaysa waxa jira dumar wacan oo ragga ka badiya sidaas daraaddeed in horumar lagu kaco rag iyo dumarba qof waliba hadaad naftaada wax tarto usradaada wax tarto adu wax istarto inaad dhulkaagana wax tarasan qaba amniga in laga shaqeeyo in horumarka laga shaqeeyo in nidaamka laga shaqeeyo in iskaashiyada xiriirka aan dadka aan isla dagno ama aan jaarka nahay ama ha noqoto Soomaalida dhexdeeda ama dad kale oo la jaarnahay ba jirto wax badan inoogu xidhan yahay in laga shaqeeyo iyaan idinku buurinaya dhamaanba xitaa anigu inaan ka mid noqdo aan jecelahay insha Allah wassalaamu calaykum imikana u yeerayaa wasiirkeennii hore
wasiir aadan jaamac hori وحوي في الحقيقة قلبته فرحد iyo rayn أنا اللي كوبي كرين إيان قلبته قبانيقو ما دام أواسكيني أستانتي أمده سمرون مدة دير كومدا كجرتي من مالنتي اللي بربريي بقرطوية ديني ما أنت إن لتشوغة أو أستينا يا أمديسة هل كأوفري لها إلهي بارقم هاد علينا وحنو لنا هاي وقاس عبد الرشيد إلهي حلكاها كو أسترو إلهي هكايا لكيد دجيا ميل دمل بلاران له أو نمعيسن وحوي وقاسك مركي وبورم أيمانيي وحي كدعي waa laga bogsaday waxa loo fidiyay oo dadyo wajaarkeena ay u fidiyeen martiqaadyo labadii martiqaadba wuxuu yiri ilaa aan indhaha soo saaro dalkayga iyo dadkayga bal waxay ku sugan yihiin iima cuntabayso markaas uu tagay waxa weeye 1979 iyaan aniga laba injineer iyaanu isnidhi warbal taariikhda reerka ham ogaano Allahu naxariistay Xasan Sheekh Muumin ilaahay jannadii ha ka waraabiye ayaanu u tagnay waxaanu nidhi adeer Xasanow waxaan rabnaa waqtigaaga qaaliga inaan ka qaadano waxaan rabnaa inaad na siiso 12 saacadood qadada ilaa iyo magaceedii 12 ka habeennimo waxbaan ku weydiinaynaa marxaba buu yidhi waan wada qadaynay waa la wada fadhiistay baalkii baasaay la cunayay ka bacdigeed afartii galabnimaan ka waraminay bal nooga waran baan nidhi reerka iyo taariikhdiisa wuxuu nagu yidhi way badan tahay wuxuu noo sheegay laakiin laba baan ka qabsanay wuxuu yidhi samaroon buu yidhi 40 sanaba mar buu guuxaa wuxuu ku guuxaa sidoo wuxuu qabsan lahaa sidoo iida u hayo bay mud meel uga soo tiraahdaa taaba lagu moodaa buu yiri ilaahay baanu ka baryaynaa inuu tubta toosan inagu toosiyo inuu isagana u fudaydiyo halkuu ina dejin lahaa idinkana waxaan leeyahay madasha quruxda badan sidaa haddaynu u joogtaysano oo nin waliba ninka kaleeto uu u dareen yeesho wallaahi meel baynu gaadhaynaa inta xafladda soo samaysay ee dhaqaalaha ku bixisayna ilaahay ha u kaabo oo halkay ka soo bixiyeen quruxda ku abuureen ilaahay ha u siyaadiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaah imikana waxaan u yeedhayaa maxamed yaabarag waxaan soo dhaweynayaa ugaas cabdirashiid oo aan u malaynayo inuu yahay wafdigii ugu cuslaa ee intii aynu imaaraadkan deganayn I don't know maybe ilaa inta la xasuusan yahay waa wafdigii ugu cuslaa ee noo yimaada runtiina waxay noo tahay sharaf weyn oo dhammaanteenba aynu ku farfarxayno maanta aynu aad ugu hambalyanayno inuu soo waqtiga intaa leegina soo siiyey aad iyo aad markaa u mahadsan yahay waxaan leeyahay ku soo dhawow jaaliyadda imaaraadka carabta ugaaska sidaad la socotaan wax yaroo taariikhaan idin dul marayaa oo ku saabsan ugaaska beelaha Gadabuursi iyo taariikhdooda runtii waxa weeye waa ugaaska ugu fac weyn beelaha Soomaaliyeed oo dhan hadii la isku daro waxaan maleynayaa inay dad badan intaa ogeyn ilaa 19 awow baa ugaasi ah Soomaalida wax yar baa la helayaa intaas oo ugaas cid tirsata waxa laga boqri jiray haddaad taariikhda dib ugu noqotaan ilaa meesha lafta boqor leeyahay Sayla deegaanka Soomaalidu degtay Ethiopia waa dhulka baaxadda oo dhan ugaas baa ka talin jiray awowiyadii waxaana ahayd ugaasnimada ugu qiimo badan ee ugu qaayb badan ee aad loo yaqaano ayay ahayd moogtahay haddii aan xoogaa dib u noqono markii gumaysigu Ingiriisku soo gelayay gobolladii waqooyi ee Soomaaliya waxa la saxeexday oo kow ka ahaa dekadda Saylac kula saxeexday oo markaa ahayd
saldanad aad u ballaaran ugaaskeenii gadabuursiga beelaha gadabuursi oo harag kula saxeexday mustacmarkii ingiriiska ee markaa imanayay cid kale oo meeshaa joogtay ma jirto taas waxay ku cadaynaysaa in saldanadeenna ama ugaasnimadeennu ahayd mid aad iyo aad u qoto dheer now haddaan u soo noqdo haddaba xaggii midnimada hadalka hortay baa la qaatay midnimada waa laga hadlay runtii siduu Saciid Cabdilaahi sheegay iyo nimankii iga horeeyayba muddo dheer waxaad moodaa inaynu ku jirnay kooma ama aadanba hadda marna inta ka dhawaajiyay runtii dib markii loo soo abuuray loo soo jafay ee boqortooyadii halkeedii lagu soo celiyay waxa muuqata in midnimadii gadabuursi ay soo noqotay inaynu meel fiican marayno laakiin wali wax badan baa dhiman waxaan jecelahay maanta inaan ka soo qaato khudbad waxa laga yaabaa inaad dhagaysateen uu sheegay wasiirka cusub ee maanta loo magacaabay dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle maruu ka hadlayay dugsiga Gar khudbadiisa waxa ku jirtay hadduu ninka horeeyo oo matalan adiguna maanta taagan tahay Dubai isaguna Abu Dhabi sii socdo weligaa ma gaari kartid laakiin hab lagu gaaraa jirta waxaad ku gaari kartaa buu 8 saacadood oo hurdo waa inaad adigu socotaa ma seexanaysa saacadda uu qadaynaya waa inaad socodka ku qadaysaa markaad saa samayso waxa possible markaa amaba suurtagala in ninkii ka horeeyay Dubai Abu Dhabi sii socday markaad adu halganka caynkaas bilowday inaad gaadho taa waxaan uga dan leeyahay 50 sanadood iyo in ka badan baan jecelahay ugaas baynaan lahayn somehow markaas si ugaasku halkiisii uu soo gaadho waxa la rabaa oo tanna waliba waxaan ku guwaabinayaa ugaaska in uu mar walba aanu seexan uu socodka ku qadeeyo ilaa intaynu gaadhayno meeshii aynu taagnayn 1912 jifa micdheer waxa joogay awowgii wuxuu halkaa kula kulmay wafdi ka socday Ingiriiska iyo niman Canadian waxa laga yaabaa inaad ku aragteen internetka yani waxay ahayd suldaanadan oo guuraysa waa dawlad dhan bay ahayd moogtahay waa jifa micdheer agteeda sawiradii baa la hayaa wixii ka dambeeyay waxa weeyaan gabaabsi baa la soo noqonay waxa laga yaabaa sababta had iyo jeer ala inagu waxaynu nahay dad individualista oo isku kalsoon inuu ninku keligii wax qabsan karo weeraas ummadaha kale ay tolaayay iyo halkan gaarsiiyay tahay waxa laga yaabaa ninka beelaha inuu la kaabtirsano ka yimitay inuu aaminsan yahay keligii intuu meel qabto inuu wax qabsan karo waxa loo arkaa daciifnimo laakiin individualismka dad badan baa adduunyada ku gaadhay waana habka ay Western Europe iyo Mareykanku ku gaadheen marka iyadoo laga tagayn midnimadii haddana taasi waxay keentay maadaama badbiyada aad ku nooshahay habka loo noolyahay inaad adigii ordman out noqoto moodada dadkii ka duwanaato laakiin aan waxaan u arkaa inay ilbaxnimo ahayn oo qofku isku kalsoon yahay oo wax qabsan karo isagoo aan cid kale isku halaynin oo aan tolaay iyo calan qaadan isku soo wada duub waxa muhiima inaga waxa inaga xantaa dad aqoon leh haddaad aqoon leedahay waa inaad meesha ka muuqataa haddii aad aqoon leedahay oo aad sida laynagu tuumaynahay waa inaad meel walba ka muuqataa dhaqaale kasta oo la sameeyo haddii aanad siyaasad ku kabinna wax allaaliyo waxaad noqon kartaa ma jirto waayo dadku siyaasadda maanta Soomaalidu waxay u galaan si ay lacag ama dhaqaale ugu sameeyaan dhaqaale keligii ma sameeyo moogtahay ummad marka waxaan generationka dambe ee dhalinyarada ku waaninayaa in ay xagga siyaasadda isha ku hayaan meeshii ay wax ka soo saari karayaanba ay galaan maadaama ay aqoon badan leeyihiin ay noqdaan dad siyaasadda aad ugu dhaganuul ee had iyo jeer aan cid kale u daba joogin kolba meeshay u socdaan iyo geediga u socdaan siyaasadda waa in xoog la saaraa dhaqaalaha waa in lagu kabaa waxaan rajaynayaa ugaaskuna inuu insha Allah noqdo ninkii inoo horgelayay dariiqa toosan inagu hadeynayay السلام عليكم ورحمة الله. waxaan imika in yar
أو كاب يجنا ويريا هوين كنا مريم عمر هداد يعني مع علي جبلي بل إذا يقولنا هل كان يني نوجا شيئا marka hore waxaan salaamayaa ugaaskayga qiimaha badan qaayac badan hidaha u lahaa sharafta u lahaa ka awow ee la iska soo saarinuun ugaasnimo laakiin ku abtirsaday baan hambaliyeynayaa aan u dirayaa hambalyo inuu ilaahay xilka u fududeeyo inuu ilaahay kii hogaamiye Samaroon ilaahay ka dhigo kii saddexda dhadhaar haga inuu ilaahay ka dhigo kiina hogaamiye ilaahay ka dhigo waxaan la hadlayaa dhalinyarada anigu lama hadlayo odayaashii islaamada midnaba dhalinyaradu inay isku tashato ayaan ilaahay ka rajaynayaa dhalinyarada waxaan doonaynaa insha Allah inaan isku tashano waayo ogaadeen iyo waa aragteen ma sha Allah dhalinyaro u kacday Samaroona waxaanu rabnaa inuu dhalinyaradu kacdo oo dhiidido marka waxaan taageerayaa in dhalinyaradu isku tashato hiiliyo hooba isla garab taagnaato maalin baan wada sheekaysanay gabadha madaxweyne ku xigeenka anagoo badan oo cijmaan loogu casuumay waxaan ku yiri sanduuq inoo samee sanduuq Samaroon oo inuu saa ugu rido anaa soo diray baan ku yiri $100 bishii waayo dawaan isqaba weyne runta fiican marka dhalinyaro waxaan anigu dhalinyaradan la hadlayaa dhalinyaro isku tashada ugaaskayga salaamaya adeeradayda salaamaya insha Allah waxaanu sidaa hadiyad qaaliyaanu sidaa hadiyadaasi waxa weeye buugga waxa la iga soo diray Saylac waxaan u siday ugaaskayga sharafta leh waana ku salaamaya ugaas insha Allah imikana Maryan waxaan soo ku faraxsanahay inaan yani arko wax sidan oo kala moogtahay ما أنا رجعنا إمارات كأنت نجوجا وحسنا وكلا آدي آدنا ونقول فرحسنا إنه أمدا إلهي سكو جرجارو إنه وحي يعني قبسنا يان كرسي أود دتك بلايين إنه أجاز كنا ودعيه ويعني دتك دول كان جوجا ودعيه دعاء جارة أنت هو من كرابة ماشي أنا صوت شوف سيدي قبلها يويلش إنه ده أنا قدرت جوابه أنا صعدة إنه دالان أو يعني نجا قران أنا كان يران نجلا سيارة وحوجا موقته ساي ودن كوجو حقوق قبطان وما دخلنا وحنا ندخل الإسلام كنا ندعينا السلام عليكم فرحان أحمد والحمد لله رياضي هدي رمودي والمقل شري أنت صو وجاس لكن ما أنت هتين سكون من وإلهي مهدي وجاس كم حدونا يا إن المدي راه شعب كان عن المدي راه ومضي يدا وحسك دكتا هدي وقت والبنتين سكون معنا أينوس أمانه وإنه قضب كأمان تقاعدنا وإنه نراهم كده برسقوا علمي بديه وإحنا إنه قمني وإنه هب يكون قلنا عد كلا ينصير لا إنه أمان كوب بدلنا ورتدبت ذا هذا وجاز كميت بان ورانا يا ارتحق باكو سهر وما دي مركي لا هذا هاي بقرتويو تطوي كم بقى عليرتي ويكم مقدرتي وح مغني سجى جوين كرا وما دي مركي سيدي بيدع يسدح عراريسو وإحنا ما جوسن كرتو وإحنا ما نقول كرتو وقت حاضر كان مركي نرنت يسكو شاغنو شركة ستول يسكو يمادو عد كستو ينولينا هاي وحلقو جويا أمان سمرونا أمان تاو كل دقاقة عد كي دماي لسوا هدي ديك لقى قالوا هدو وحسمي والله أمانة علمي بعد لهان شرتي تاريخ لكن وحكمني يمسون حدي ما كتهاي محادي ما كتهاي الدنيا وتوت وحي قاعد علمي بيقعد عقلي بيقعد وحبي قبصتي محادي ما كتهاي هذا أمانتي أو قالها aad ku shaqayso waa dhibteeda kacaanka ka hor maxaad ahaan jirtay imaka waxa tahay baa ka wanaagsan waxaad ahaan jirtay haddii fagaaro la isugu keen yeedho waxaad arkaysaa in yaroo goosato oo midi inay timaado waa alxamdulilah maanta intaas way wada timi ugaaska dartiina way u timi waxa ka wanaagsan riyadaasoo la rumeeyo xoog loo wado oo mar walba iska warhayno waxa yare inagu dhex jirana aan waxbaba loo arag waayo adigiyo sida kalaba u yar nimcaysan haddana hadaad xoorkaaga yar haddana adigii aad sii kala qaado waa dhibtiridaya ugaaska mid baan oranayaa waxaan leeyahay marka ugu horreysay ilaahay ka baq mar labaadka cadaalad wax ku xukun gaalada aad arkayso ilaahay wuxuu cimriga ugu dheereeyaa ummadda cadaalad isku dhaqada adduun oo dhan cadaalad baa ka muhiima gurigiisa qofkiisa qofku cadaalad haduu ku shaqeeyo ilaahay irsiqu uu kordhiyaa waa gaalka islaam bad sheegaysaa irsiqu uu kordhiyaa
shaqadu hayuu kordhiyaa wax kasta ilaahay uu qabtaa marka waxaan ugaaska ka codsanayaa marka ugu horeysa inuu ilaahay ka baqo inuu cadaalad ku dhaqo ummadda kala jeedsan hawl badan baa u taala waa ummad si kale wax u waraabsan ummadda xal maaha maanta mar waa xoog marna waa xal irbad iyo dun inuu qaato ummadda horta isku talo bal siduu markuu xabad ilaa qaar baa ka dareeri doona inuu ka daba cararo uu wax raadiyo isku talo shicibka badan ay soo eegayay intay maqlaysana waxaan leeyahay war inagu nusqarni iyo saayid baynu maraynahay dadkeena waaweyn ee wax kale ku jiraano waynu soconnay caruurta yar ee adduunka meel walba ku soo tartantay xuduudahooga iyo xaqooga ha u koraan oo ha u weynaadaan dhaqan wanaagsan waynu sii soconnay inan waliba hooyadeed dhaqan bay kala hadhi jirtay laakiin kuwaan anigu weynaa dadkan imaka waxay nagala hadhayaanba ma garanayaan waa 20 sano la waalan yahay dagaal iyo dib lagu jiro taariikh buu dadku ka tagi jiray inan bay wuxuu ka tagaysay odaygu wuxuu ka tagay ummadii kalena waxaan leeyahay idinku qiimeeyo oo wax ka dhiga oo maqla oo wixii aynu qaban ugaaskana waxaan leeyahay waliba xaqii maqnaa raadi ilaa Jabuuti waa walaalaheen xaq baynu ku leenoo dad degan baynu ilaa wixii ka soo horeeyay Itoobiya dadka ka qabatay ilaa heer inagu baa siirayno qalbiga iska dileen ilaa herar baynu degan xaq baynu ku leenahay xaqii herar aynu ku lahayn berbera ilaa bulaxaar xaqii aynu ku lahayn madaxweyne ku-xigeenku aynu leenahay sidiisaba waxa wax raadin kara waa nin la doortay oo dawladdu shaqeeya halka iska dhig waxa maqan waxa raadin kara ugaas iyo dhulkaynu lahayn ilaa berbera agteeda ilaa Jabuuti ilaa herar baynu leenahay xaqii maqnaa ugaas waad ugu soo raadi keena xuduudeeniina keen waar idinkuna ku raaca waxa la yidhi dad baa kasa oo kara dadna ma kasaana way karaan waar noqdo kuwa aan kasin ba idinka fiican haddaad idinku noqotaan kuwii kasay ma karaysaan laakiin bal noqda kuwa kasin ee karaya noqda isku daya waad mahadsantiin ma birba ku chabane heleli wa be
عسكراه هو عسي ملك عينه عسي ملك عينه كل عسكراه هو عسي ملك عينه عسي ملك عينه كل عسكراه هو عسي ملك عينه عسي ملك عينه كل عسكراه هيا 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 اوي حنا حابان ويابان هوي يابان هوي سدح والله عيارايو سدح وي قرقورتانو سدح والله عيارايو بقركي عاد الله الله عراس والله عيارايو سدح وي قرقورتانو سدح وي قرقورتاني وردادو قرقورتايو دادكو قرقورتايو وي حنا حابان وعلى الرجب الركوة سمي وعلى الرجب الركوة سمي ورتوكل كان صور روغو رجلو تبو معديحن 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 وديهم 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 waxaan imikana ku soo dhaweynayaa oo yarna odhanaya daahir xasan dan quraatan wada leenahay wax quraatan wada doonaynaa hoggaan quraatan wada doonayna hoggaankiina waynu helnay ammaano badan baan halkan isku tirinay sidii gabadha hadda sheegaysay taariikho badan baanu sheegnay boqortooyaynu lahayn ugaasyaanu lahayn dhanka kale hataa udhiga siyaasiyiin baanu lahayn oo adduunyada waddanno idin loo isticmaaliyey midee magaca iyo kuu bixiyey oo magaca ku qoray waxaynu lahayn shalay baa ahayd Djibouti wixii magaca inagu aanu qornay ee magaca baa la yiraahdaa Djibouti ni Samaroon ahaa ninkii halkaan intuu ka booday Faransiga sanadada ka noqday ni Samaroon ahaa kuwii gobonimada u dagaalamay Djibouti ee loo xidhay ee loo dilay ee shalay barkood ay dhinteen Samaroon bay haayeen Samaroonka taariikhdu way badan tahay haddana waxa halkaan ina dhigay maanta waxa weeyaan inaga tafaaruqaynaas iyo kala tageynaa weey Ethiopia shalay toole markii magista uu ka tagay waxa la yiri waxa tihiin qoomiyadda labaad ayaa tihiin baa la yiri haddana ma talan ka joogno wadarkaysi waxa inoogu wacan taasi waxa weeyaan hoggaan la'aan hoggaan aan jirin ayaa inoogu wacnaa Somaliland maanta waynu aragnaa siyaasi wuxuu inoo keenay madaxweynaha ka gaarnay ku xigeen ma ka gaarnay wasiir waanu ka gaarnay waxaad arkaysan haddana halkii loogu talagalay weli inay bannaan tahay koogaa waxa weeye ninkan madaxa waa nin lagula leeyahay oo adu aan gaar u lahayn ninkan madaxweynihii laakiin ugaaska inaga leh ugaaska inaga leh magaceenu matalaya inagu magaceenu matalaya haddaba sidaa uu magaceenu matalaya inagu si joogaana waa inaa sidii gabadha ay sheegtay qalbi furan halka markaan ka dareerno sidii caado inoo ha jirtay waa inaan wax kale la maqan waa inaan lagu wada daba joogso waa ninkii mustaqbalka qaba amba daacad ka ah danaha Samaroonka ama gursiga marka waxaan leeyahay war ilaahay nakarsiyo dariiqa toosan ugaaskeena ilaahay noo barakeeyo waxba kale qaban maayo haddaan inagu waxa qaban weyno haddaan daba taag weyno wuxuu noo qabanaya majmuuc qaban karo ma qaban karo laakiin wuxuu qaban karaa wuxuu noqon karaa marka inagu isdaba taagno ee halka ma taqaan hooyo hiilba ayaa aan isla garab taagno imikana waxaan u yeedhayaa diktoorkeena diktoor xasan saacad xaaji xirsi buug kasta oo la akhriyo waxa ku taala bini aadamku hadduu taariikh lahayn ma jiro zaylicigu waa taariikhdeennii ugaaskeennuna waa taariikhdeennii ugaasku waa symbol of unity waa astaantii midnimada anoo Addis Ababa jooga ayaa niman ayra soo hadleen ugaaskuna wuxuu joogay markaa Ethiopia waxay yiraahdeen Haile Selassie wuxuu ahaa geeska Afrika fidniintiisii wuxuu ahaa
symbol of unity astaantii midnimada ugaasku wuxuu ahaa institution waqtigan xaadirka ah horta waxaa nasiib wanaaga inuu institutionkii soo noqday waxaa taariikhda aad ugu dheeraaday ninkii qoraalka ahaa oo malaha xalay oo dhan google ku jiray yaabarag intii yaabarag yidhi waxaan ku darayaa yaabaragoo waxaan kaa sugaynaa inaad taariikhda ugaaska aad soo qortid number 1 number 2 ugaasku institutionska u lahaa wuxuu lahaa wataatarku waxa weeyaan dadkii taxka soo ururin jiray tii maanta ma jirto ugaaska waxaan farnay arrimo fara badan waxaan nidhi waajibaad badan baan saarnay horta intaan dib ugu yara noqonno يعني دور طلابة دي بهنو قادنا institution كا إن خور دسنا ما هنا and ما دسما يو بل just هني ما نجي قرينه هن تخيلنا وجاسكا أو بورا ما دحس هذا نقول بوي من يا وجاسكا جيبوا ليه وحورنا يا شلي طاله حلي عروتي دي وحبط بقوم ساري وإنستيوشن كان كهذا وحين صارن مروالون جوجنبه وموشين كانوا عن كينيو وجاسكا إن نسيت فاونديشن إسكا أدونكا ولا ما عملنا أو فاونديشن يسوي له هو وجاس فاونديشن لا أن سمعنا موشن كاسي وموشن أن كان أن صوب بندقيو وحنكوفنا رأي أبو دبي هذا هاي جامعة بلوناي وحن سمعنا وحن ودنا أن لغية هل كنا هنقبلونه فاونديشن ولاية هاي وغاسكو أو سقط دبورة وحيابها هل كاكا كما هرايو شاكذا هل كاكا كما هرايو وأرنتا وان كفكري انت نكفر ديوان كفكري لباتن إنان أوش لحدي بلاد با وحسكو قرى أو قدمة وحيواب بدن بي أبو رئيسة وغاسكا طلبات فريا وحويان وحلا تابتو دورني نايسكا دابا تابتين دقاله هو wax jira waxa aniga igu weyn shakhsiyan aragtidayda waxyaabaha istaraatiijiga dekada luqhaya ayaa ugu horeysa dekada luqhaya inuu rol weyn ka ciyaaro ugaasku waa taariikhdeeni in badan baan kala daadsanayn waa ugaaskeeni وأوغاس كدر بورسي حتى أنا وحن كسور دوينا وأي شرف وين إن أوغاس كسور دويا ميكروفون كا أوغاس سور دو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو الرئيسة إلهي ومهدل isku keenay waxaan mahad labaad u celinayaa jaaliyadan Imaaraadka oo aad iyo aad farxad weyn ay ka muuqato anigana farxad qalbi fiican nagu yimiday aad baad mahadsantiin cidii soo qaban qabsay xafladan quruxda badan iyo intiina ka soo qayb gashay dumarka odayaasha dhammaantiin dhalinyarada dhammaan aqoon-yahanada aad iyo aad baan inagu mahadnaqayaa sida fiican oo du soo abaabusheen waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol wayna farax gelinaysaa runtii waxa weeye socdaal badan baan soo maray hawshu ilaa last 2 years way damaqday in dadkeenii oo dhibaato badan ay haysato inaan kaliday iska joogo Canada taas baan go'aan ku gaaray markaa inaan hawshaasi
markaa walaalayaal anu company dhammaan u shaqayn jiray Canada in Ottawa markaan eegay xaaladaha siday wax u socdaan baa ii cuntami weyday in dadkeenii oo dhibaataysan aan kaliday halka ku noolaado caruurtaydii iyo reerkii waxaan idhi Ilaahay baa inaga tagay aniguna tolkay inaan hawsha ka saaro inaan hawsha ballaaran dadkeenii wax la qabto oo hoo iyo heel baan la garab joogsado dhiigayga naftayda aanu hore baan u ballan qaaday dadkeena markaa hawshii way soo socotay runtii waqti badan oo deer rafaad iyo dib aan soo marnay haddaan xabxabad u tilmaamno de lagama soo koobi karo laakiin waan guuleysanay alxamdulilah rabbil caalamiin midnimo aan ku guuleysanay ilaahayna sabab inooga dhigay markii u dambeysay boorama tagay dadkeenii oo faraxsan oo wadamida ayaan u tagay markaasi taasina aad bay dadkeenii u dhiirigelisay inay midnimadeenii aan adkayno dibadaha qurbaha oo dhan meel walba marnana midnimada waan u sheegay inay wada midoobaan inay mid kaliya aan nahay midnimada un baa wax inoo qaban kartaa tafaraaruq haddii aan gallo dhib weyn bay keenaysaa maroodiga intaa leeg libaaxyo isku tagay baa dhulka dhiga wada aragteen tafaraaruq waxaasuu dhibaato leeyahay marka inagoo midaysan oo ilaahayna kaashanno oo ilaahayna aan baryayno horumarkeena ayuun baynu markaa hore u socod uma noqonaynaa wixii shalay aan soo dhaafnay inagoo tusaale badan ka qaadanayna hore u socod inaan samayno oo berri maxaan qabsannaa maxaynu dadkeenii wax u qabannaa sidaynu dekedeenii u dhisannaa inaan waxaa ku fikirnaa loo baahan yahay xidhiidhada dariska imanka kilalkoo kale waad la socoteen ugu dambeysay qurbajooggeenii Canada qaar ka socday baa jiray dadaan Ingiriiska iska raacnay baa jiray marka horumar bay imanka dhulkii keeneen cagafyay keeneen kuwa qamadiga goynaya oo ilaa 4,000 oo joonyadood ma arkaysaa lagu goynaya ayay keeneen horumarkii markaa jaaway bilaabeen ba iyagu inteena kale qurbaha ama imaraadka ama dhulkan joogto dhan inay isku tagaan oo is aaminaan oo dadkeenii ay wax u qabtaan ayaa la inaga fadhiyaa dadka dhulkeenii shaqo ma haystaan waxba ma haystaan laakiin shaqo abuuris inaga samayn karna in 10 qof oo isku tagay ayaa warshad geyn kara warshada markaa shaqaala dadkeenii baa ka shaqeynaya wax badan baa in qabsan karna wadajir baana lagu qaban karaa hawsha marka walaalayaal waad aad baan inagu mahadnaqayaa inaad hawshaasi ilaahay inay dhibiray halkani waa meesha baaxmushteriga adduunka ugu weyn inaad dadkeenii caawisaan baa loo baahan yahay waxaad arkaysaa 13 jir tahriibaya oo naftiisii dhulka ku baaba'ayso taana waxa ugu wacan dadkeenii wax bartay ama kharashka hayay oo shaqo abuuris u sameyn waayay marka inaan dad kalaba nidaam wax may noo qaban waayeen ma waa inaan inagu aan gurigeenii dhisana marka inagu wax qabsano dadkii kale oo dhan baa marka kugu soo imanaya marka dekadu waa number 1 inaynu dhaqaale halka ka abuurno rag badan oo maraakiib iyo bankeenina yiraahdeen waan arkay Ingiriiska jooga oo diyaar u ah inay dalabaadka dadkeena ka qaadaan ay lug haya soo gaarsiiyaan maraakiibtii hawlo badan baa socda dadaal badan baa socda xagga kilalka dawladda waan la kula siiyay namadii markan qurbo jooga geeyay si fiican baa loo soo dhaweeyay dadkeena wax ka qabsanaya dhulkaas ama baaxmushtari ama kuwa hotel la dhisay haday jiraan dhulkii waa la insiinaya magaalada bartankeeda la inaga siin sida uu madaxweynuhu ballan qaaday marka dawladda iyo dadkeenii madaxweyne ku-xigeenka Cabdullaahi Toobiye iyo dhammaan dawladeena halka kilalku waxay ballan qaadeen inay dadkeenii ay aad u soo dhaweeyaan wixii maalgelin sameynaya inay hooy iyo heelba garab joogsanayaan ayay ballan qaadeen marka inagoo jaaniska ka faa'iideysanayna waa inaan isku tagno oo dadkeenii aan abaabulo halka aan wax ka qabsano anigoo kale injineer Maxamed Iqbaal oo hadda Canada maanta ka yimanayay baa jooga iyo qolooyin kale oo iyaguna keebil wada oo qadar ka yimanayay baa jira oo ku ballansanahay intaasoo dhan baa dhulkeenii baa geynaya haddii Ilaahay nala qabto hawl deesaasaan ugu dadaalayna xidhiidhada waan hagaajinaynaa insha Allah xaggan kilalka waa dadkeenii baa jooga si fiican bay dawladdu inoola qacan qabanaysaa Ethiopia iyaguna waxay u baahan yihiin wixii laynala qaban karo xagga amniga xiriir fiican baan iyagana wadnaa marka walaalayaal idinkuna dadaala horumarka ka qayb qaata dhaqaalaha si kor loogu qaado ayaa loo baahan yahay
marka xidhiidhadeennina waa sidaa wax hore socodkeenniina waa loo baahan yahay inaan hore degdeg wax ugu qabsanno oo dhulkeenni iyo dadkeenni wax u qabanno ayaa laynaga sugayaa tafaraaruqana la iska yareeyo marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadsantihiin reer imaaraat jazaakallah khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad u mahadsantihiin ilaahay hayna barakeeyo allah hayna barakeeyo ilaahay caafimaad hayna siiyo ilaahay dhaqaalaha allah hayna kordhiyo ilaahay dhaqaalaha hayna kordhiyo ilaahay caafimaad allah hayna siiyo الله إني لبيريه دمرك إلهي خير بدن الله سيه إلهي أولادنا أولاد خير لا الله إني وضسيه قفوا المبرات كيس إلهي هو لبيريه إلهي جنة هيني وذقيه إلهي زي شرفت الله إني الله إني وسود عليه إلهي مستقبلك دتكنا الله هدسه إلهي أمة قلبي واحدة الله إني نسيه جدك النبي مريا الله إني مريه كنا ريدنا الله إني جنبت قليه اللهم صل على سيدنا محمد فاتحة إلهي دعاديسا إيه إنت وإن فري إيه إنت هذا الذي سابين الكفة إذا يسنو لا شقين ونعكسن إيه هذا الله صاير نقلا أورن نقطة وأنا دمانتي أنتي تمدي أوجت تمدي وجالس كافر حديثة إيه أنا وحدة قبسي أنا بقى أوجت تمدينا واد ما هتسنتهين داود يا الصادو أركسان بالكم وحيلتها جن هذا علي محمد أن هذا أن صادو أركتها وجالس كسودوينتي يشعرت هذا بالصيد إنه قشكه بسم الله الرحمن الرحيم آد بياد بان غفرح سنة سوا وجاست سلوين تيسا يشعور تيسا أنت ضد السوي مدي أنت تي في سوي مدو وهرية تي في جا رويال تي في أو تي في هو وين كتشرة آد بان غفرح سنة هاي وجاست كعمان تساق رحت بدن شرفت بدن الإمارات كلوجو سلوي وحن كان نمد أنا ودن كليرا إنجليز وحن نمد في حد وجاست إن أنا قريب قالله وانتقدوا سوا قصني وأنا غفرح سنة آد وجاست قبل ما وجاست قرن ويا إلهي إذا كي dadka iyo dalka iyo dadkaba anfaca Allah ka dhigo ducadiisana insha Allah Allah noo aqbalo aan daawada yalsaad u arkaysan bay imika halkan waxay la taagan Kawsar Cabdi Umar Kawsar ku soo dhawo telefishinka Royal waxaanad nooga warantaa shucuurtaada soo ahayd maanta aad ugaaska aad ku soo dhaweyseen dalkan Istaga Imaaraadka Carabta magaalada Dubai Okay waan ku dhawahay waxaan ku faraxsanahay imaatinka ugaaskayga beesha Samaroon waxaan aad ugu faraxsanahay maanta anoo la kulmay ugaaskaygii anoona hore ula kulmin waxaan leeyahay ugaas soo dhawow ugaaska beesha Samaroon soo dhawow ciyaaliya caruur iyo ciroolaba adiga ay daawashadaada iyo soo dhaweyntaada u heelayna ayaan leeyahay adduunyadana baraadho aakhirana jannaan ku rashaynayaa aan daawadayaal saad u arkaysan ba imika halkan waxay la taagan Shukri Cabdalla Maxamuud Shukri ku soo dhawow telefishinka Royal shucuurtaada inooga waran maanta ugaaska soo dhaweyntiisa aad ku soo dhaweyseen dalkan Istaga Imaaraadka Carabta khaasatan magaalada Dubai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مركز روح الإسلام يا قرض رويال تي في إحنا أدبد سلامتين جماعة الشعور تهذا مقياس كريم أدي أبانو وفرح سنة هاي ويوم حنسوقنا إم بدنا بنسوقنا الدواس كبيرها كذا بورسي هذا وحسو قاري أفرع شكر ما أنت وحلو قبتي حفلة يجوينات وحنشألها والله سفي عم الله فرح سنة الرولي عيال رجي دمر مركز وجاس كم حلنا هاي إلهي حلك هذا يصد إلهك واسطره marka anaguna waqti kasta waan garab taaganahay dadka jooga qurbaha meel kasta joogana waxaan leenahay afkuun dama in la yiraahdo waa ugaaskii in la caawiyo weeyaan oo la garab taagnaado oo heliyo hooba dilalaag joogo aad iyo aad baan deynay salaamaya wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal saad u arkaysan ba imika xayaad ayaa halkan ila taagan xayaad saad u aragtaa soo dhaweynta ugaaska beesha Samaroon aad maanta ku soo dhaweyseen Dubai wallaahi maanta waa maalin farxada waa maalin aad iyo aad horta gaar ahaan aniga igu qaaliya aad baan ugu soo dhaweynay waana ugaaskayagii abiida jirayay waanu garab joognaana waana ku faraxsanahay wallaahi ma sha Allah alxamdulillah waad maanta waad arkaysaa say u dhacday waana taageersanahay daawadayaal halkan waxay la taagan Iimaan Aleel Diiriye Iimaan ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Royal shucuurtaada nooga war ku soo dhaway aad iyo aad baan u soo dhaway telefishinka Royal TV aad baan u mahadnaqayaa anigoo kamid ah bulshada ku nool Imaaraadka Carabta gaar ahaan Dubai yani maanta aniga farxad weyn bay tahay ugaaska dhaqanka Samaroon oo aan siyaasad ku jirin laakiin dhaqanka Samaroon soo celiyay inuu maanta kan ugu yimaado oo ku soo dhaweyno insha Allah aad iyo aad baan ku faraxsanahay waan ducaynaa soo noo duceeyay waan maasantiin ma TV daawadayaal halkan waxay la joogtaan Nimca Cali Gabiiley Nimca ku soo dhawo telefishinka caalamiga ee Royal shucuurtaada nooga waran
بسم الله الرحمن الرحيم شعورتي واديga arka ayga muuqato shucuurnimadu horta awal mar waxaan salaamayaa TV-gayga ma ha TV waa TV-gaygii Royal 24 aad baan u salaamayaa iyaga shaqaalihiisaba way aad baan u daawanaa TV-gayga aad baan u salaameynaa shaqaalaha waliba isku taga imaaraadka carabta email kasta joogaanba shucuurtayda waadiga arka inay iga muuqato waxaan aad arkaysaa maaha uun ugaas waa toban ugaas waa konton ugaas waana markii koobaad ee ninsa madax u ah amba qaali noo yimaado marka waadiga arkaya in beeshayada iskugu timid amba beelii Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogaanba aad baan u hambalyeynaa inteedii timid وانا نسود ويننا أي صومالي نوتي ماذا على عين وراس بيت العربت مركا ماذا حين نسارين يندابا ماذا صومالي مركا نوتي ماذا ماذا حد يوليبه وحانا آد تيفية ده يوليبه رويال 24 أيوه الرئيسو أيام وضع السلامية شغاليه دقيق ما يقع يابضا وررك سيدا في عنه وقس وتبيه آد بان وضع السلامية أن داود يالالكم حيلا شوكتا مليون هدون مليون كسو دو تلفزيون كعالمي الرويال شعورت هذا النوغورن والله شعورت هذا وجهي قاعد كأركتها يسوي أكتها رويال لا أدبان يعني وقوم هذا علينا أفريا لا تصعدت بنتنا ما شاء الله يعني وحكي كفمله هم بليا نرتلين هاي طلبات ما أدبان وقوم فرح سنة أنك وجاس كي هالكم كلنا مدة بدنا نسوين يعني وجاسكم ما هو وحلا يسكتون وواحد دلوا ليها مركا أدي أتبع وشعورت هذا كعصنتها وحلا إلها إنه دا الصومالي ودم وجاسيها أنكم وجاس لهم معها مركا أدي أدبان لهم بلي شعورت هذا أنت عسكوا أكتر منصك وبكر داود يالصاد وأركسان بإمك هالكم وحا إلى تاجن إبراهيم شيل إبراهيم كسر دو تلفزيون كعالمي الرويال شعورت هذا ما أنت بالصدق هاد وحنا نوجه شيء كرسا ما شاء الله أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا أول شيء TV رويال وحفلة سفي عن وقبقابية أركت في عن إيو هول ونكسر نقبتي سودوينتا أوغاسكا باشا سمرون إن فرحتنا مركاد إكتو فرحتي هذا ويديسو إن كستون كيم دانو مجال راس الخيمة ملدر آدي أدبان وفرح سن هاي ماشي أنا وحل إسكم وجي إن وحقبتك رنتا سيدا جوالك أوضل وجاسك مركاد أركته والقب كيس وحقبت كيسة إن صدق حباجير هرت اللي هذا مدو وحل هذا مدو أم بمجدو أم بجرعتكو مدو لكن ضيحوا معينا maalinta laakiin ka baxaan marka maanta samaroonku marka hore ama beeshaasi awdal ma ay lahayn muddo dheer hogaan iyo sida ugaas hay yeeshee maanta waxay heshay ugaaska alxamdulillaah rabbil caalamiin de qofku markuu dhasho baa loo magac bixiyaa markuu urku jiro loo magac bixiyo ugaaskaas maanta yimid oo muddo maqnaa ilaahayna de ka dhigo kii isku keena ummadda geeska wala degan daawad yaalkan waxay la joogtaa xamda cabdulaahi xamda ku soo dhaweey telefishinka caalamiga ee royal shucuurtaadana bal nooga waran say ahayd maanta aad iyo aad waxaan salaamayaa Royal TV aad iyo aad shucuurteedu maanta wada arkaysaa way kacsan tahay ma sha Allah ugaaskayga soo dhaweynay ma sha Allah aad iyo aad baan faraxsanahay marka aad iyo aad waxaan salaamayaa ugaaska dalka ka soo qayb galay Royal TV xoogana salaamayo assalaamu calaykum daawad yaal imika halkan waxa ila taagan Saciid Axmed Saciid ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Royal shucuurtaada say ahaydna wax ma nooga sheegi karaysaa maanta wallaahi waan kaaga sheegi karaa horta waxaan salaamayaa dhammaan taqaanaa waxa weeyaan ummadda halkan isku timday oo ugaasku kow yahay aan maanta ku soo dhaweynay farxad weyn bay aniga runtii ii tahay maadaama aan ugaaskii beelaha Samaroon aan halkan ku soo dhaweynay oo aan mataqaanaa waxa weeyaan farxad iyo damaashaad weyn bay tahay waa cusub oo u bariyay bay tahay beelaha Gadabuursi maadaama uu mataqaanaa waxa weeyaan intaasoo sanadood oo mataqaanaa dhowr iyo 40 sano muddo aan ku qiyaasi karo bilaa mataqaanaa ayna haynin mataqaanaa waxa weeyaan hogaan maantana ay heleen hogaan oo ugaaskii uu yimiday farxad weyn bay tahay marka waxaan leeyahay ugaas soo dhawow dadkaagii iyo dalkaagii ku soo dhawow horumar maanta mataqaanaa dadkaagii dalkaaga ugu horeysa waxaan leeyahay hogaanka u qabo annaguna garabkaagaanu taagannahay waanu kugu faraxsannahay waanu ku soo dhaweynaynaa mar walba waxaan garabkaaga naga eeg adiguna kii cadaalad iyo sinaan iyo horumar nagu hogaaminayay noqo waxa weeyaan waxaanu ilaahay ugu shukrinaynaa mar haddaanu dadkii haddii uu hogaan uu helay uu ugaasku yimiday farxad bay noo tahay daawad yaal halkan waxay la joogtaa Gudoon Cabdiraxmaan Gudoon ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Royal shucuurtaada nooga waran
walaalad baa ma santahay marka hore runtii caawad baan u faraxsanahay ma soo koobi karo farxadayda way waxa meekii ugu horeysay la kulmay ugaaskayga beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Doodi ugaas Rooble waxana leeyahay ugaas ku soo dhawow bulshadaadii iyo dadkaaga oo ku jecel waxaan induguna aad baa u mahadsantiin daawadayaal sidaad u arkaysaanba imika halkan waxaa ila taagan qabanqaabayaashii xafladan qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida weyn loo soo agaasimay raggii ka soo shaqeeyey ayaa halkan ila taagan oo ugu horeeyo Ilyas Xuseen Cabdi iyo Boqor Ilyas iyo Cabdisalaam Maxamed anoo ku horeynaya Ilyas shucuurtaadu say ahayd maanta كلي والله سيدان بي نيغو دعaysaa isman lahayn alxamdulillah si fiican bay noogu dhacday in kasto oo ay ma daragtay aan waqtiyadii u dambeeyay oo aan qaban qaabada aad ka weyn u galay laakiin si fiican bay noogu dhacday aad iyo aad baan de ma daragtay shucuurtaydu maanta way kaxsan tahay ugaaskii oo farxad noola yimiday oo halkan aad ugu soo dhaweynay oo ma daragtay in rag iyo dumar jahliyada imaaraadku ayna u kala hadhin alxamdulillah waa arrin wanaagsan oo lagu faani karo waxaan hambalyeeyaa ugaaska waxaan leeyahay ugaasow hawlo badan baa ku yaala ugaasow hawlahaas insha Allah dhalinyar iyo odaya iyo dumarba waa lagu ag taagan yahay ahlan wa sahlan baan ugaaska leenahay waan ag taaganahay salaamu calaykum imikana waxaan microphone u dhiibayaa Boqor Ilyas shucuurtaada say ahayd maanta bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan malaynayaa maalin nalamida haddii aanu nahay beesha Gadabuursi ma jirto maadaama haddaan nahay jaaliyadda Imaaraadka waxa nala jooga meeshii ugu sarreysay lana taabanayay waa ugaaskii Samaroon waa ugaaskii guud waa ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi waa ninka 19 ugaas ku abtirsada waa maalin cajiiba ومالين وين إن شاء الله وحن فيليا إني وحنا سفدود بنوقف بعدي سوينا أحسن بنوقف بعدي ولي وحنا ما هدنا قينا تي في رويال وددال بدن قلي جهد قلي ونلا شوقي لا ما أنت وحكلون ما هدنا قينا ومدي هالك سوق قيب قشي ومد وين تسمرون أدون كل شوقنا هالك صار ما تقول علينا وأنا وجاس كيجي هدرنا وحن دعوم بنوقف هدي إنه ندعي وجاس وكبه Cabdisalaam saad u arkaysay maanta yani qabanqaabadiina inkastoo ina hawlo idinku yareen oo maanta aad dhinac walba u kala cararayseen shucuurtaada wax ma nooga sheegi karaysaa maanta وأنت كشكر يا أرض مكة راح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز حتى وقت إلهي بمهضل نوفد دي هاوشان عنو قلي ونكشرني مدة قاعد سيمك كده وهالأسبوع عن قبل دينا ما تشوفني عندما تهذنا أنت شقادك شيء قدام مجا عنو جدك وهذا أنت كسوق قيب شيء إذا ما بدك عنو جمع اللي شرفت عليه نقول له سوق قيب قلنا سقروح بدنا بنقول معطي هذه أدبار فرح سنة هاي dadka ka soo qayb galayna waxaan leeyahay waqtigooda noo soo horeyna waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugaaskana waan ducaynayaa si fiican buu halkan nogala hadlay noogu duceeyey oo noqod iyo aragtidii ay dadku qabeen iyo ra'yigoodii ay ka dhiibteen waxa ay tabanayeen ugaaska u sheegeen ilaahayna ugaaska waxaan uga rajaynayaa inuu hawlahaas oo dhan ilaahay inuu fududeeyo oo kii waxaas oo dhan ba kara ilaahay inuu uga dhigo waxaan ku aankan ugu mahad celinayaa Royal TV oo si sharaf leh ay ku mudan tahay uga qayb qaatay barnaamijka ilaa iyo bilow ilaa dhamaadna nala socdeen aad baan uga mahad celinayaa waxaan leenahayna ilaahay maanta maalin aad iyo aad u weyn bay ahayd oo maalin qaali ahayd waa maalintii intaanu joogno ugaaskii ugu horeeyay ee ugaaska Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi noogu yimiday aan ku soo dhaweynay isagoo naga soo booqday dalka Saudi Arabia toddobaadka gudihiisa naga soo booqday ayaa waxaan ku soo dhaweynay airportka maantana waxaan ku jirnay qabaqaabada iyo xafladii ugu dambeysay aan ku sabootiyay ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa ilaahay nabadgelyo u geeyo sagana daawadayaal saad u arkaysaan imika halkan waxa ila taagan Cumar Aadan oo ka mid ahaa qabanqaabayaashii ugaaska beesha Gadabiirsi soo dhaweyntiisii Cumar Aadan ku soo dhawo telefishinka caalamiga ee Royal waxaan ka warantaa shucuurtaada say ahayd maanta بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeystii horta waxaan u mahadnaqayaa Royal TV oo run ahaantii arrimaha bulshada door wanaagsan ka qaata haddii aan su'aashaada ku soo noqdo runtii maanta maalin aad u fiican oo cajab leh ayay ahayd waxaana la soo dhameynayay maxay ahayd hoggaan ka mid ah hoggaanada Soomaaliyeed oo ah maxay ugaaskii beesha Gadabuursi marka run ahaantii dadka halkan isku yimiday si fiican bay iyo qurux badan bay soo dhaweeyeen isaguna maxay ahayd door wanaagsan buu muujiyay iyo qaabka shaqadiisu ay tahay marka arrin lagu farxay taas Cumar Aadan waxaad nooga warantaa in ugaas beelaha qaar waxay u haystaan ama ay u yaqaanaan garaad beelaha qaarna waxay u yaqaanaan inuu yahay boqor wax tafaasiil ma naga siin kartaa labadaas waxay kala yihiin
وصح رنهانتي وسؤال مهمة ورنو بيلها الصوماليات بيل وحي ضدك قاركي وحيدان وجاسك وحي هايستان مستويها مثلا ملاقة أما محيط عاقلك أما هرجوج أي وعدك سدان بيلها قاركودنا وحي وعدك سدان سيدي بقر أكله رنهانتي هالطبع مركي نير ديبو نقطة تاريخ ده الصومالي ده أنتي أنا دولة نما يوم دهير قرن يوم مستوى عين كاس أنا سبنا قلقلة اللو تاجنا reer waliba wuxuu lahaa boqor ama hogaande ay isku maamulaan si ay masaalixdooda iyo danahooga iyo ay u difacdaan ama ay u ilaashadaan ama wax u wada qabsadaan marka beeshadan gadbursiga waxay ka mid yihiin beelaha ugaas micnihiisu uu ahaa boqor waliba hoos baan kugu sii dhadhacaya qaab waxa jira ugaasku iyaga xagooga wuxuu ahaa hoggaanka koowaad wuxuuna lahaa 100 nin iyo isaga marka 100 haayeen hoostiisa marka ama kolka maxay ahayd nidaamkii dhismaha loo eego ugaaska waxa hoos iman jiray 4 guddi 4ta guddi mid waxay ahayd guddiga difaaca beesha guddi waxay ahayd guddiga arrimaha bulshada guddina waxay ahayd guddiga arrimaha cadaaladda iyo garsoorka guddina waxay ahayd guddiga kobcinta dhaqaalaha saddexda afarta guddi afartooda Jerman waxay haayeen afarta dhadhaar ee uu ka tala qaato maxay ugaasku iyadoo talaqaadka iyagoo quraanay ku koobnayn sidaan ku soo sheegay 100 nin oo ay hormood ka yihiin afartaasi ayaa talada guud bixinayay gaar ahaan marka ay hoos loo soo dego marka afartii dhadhaar oo ka dhex iman jiray maxay beelaha ay ku kooban yahay reerku ayay ka socdeen deedna marka beelahu ay isku waafaqaan ayaa marka la guddoonsiin jiray oo maxay ahayd ugaaskuna marka uu ku hogaamin jiray bulshada runtii taasi marka waxay keentay in marka mujtamacaasi masaalixdiisii danihiisii cilaaqaadkii Soomaalida kale siduu kula dhaqmayay siduu wax ula wadaagayay yani halkaas marka qayb ugu qaybsaneed oo halka ka socodsiinaysay marka sidaas ay u kala duwan yihiin ugaaska iyo maxay ahayd erayga ugaaska sida loo kala adeegsado beelaha Soomaaliyeed sida ay u adeegsadaan ugaasku marka waxaan ku oran karaa marka waxa weeyaan waa udub dhaxaadkii midnimada iyo ismaamulka qoyska ama beeshaas ama Soomaaliya oo dhan ba saas way la soo wada lahaa oo jirtay deedna markii dawladnimo iyo ay sameysmeen waxa laga yaabaa in waxyaabo badan ay isbedeleen oo awoodii tabihi waxyaabo badan ay iska bedeleen waxa kolkay timiday beelihii Soomaaliyeed inay wax qura noqdaan waxa loo baahday marka in beel waliba iyadoo is habaysan in beelihii kala wanaaga iyo nabad iyo wada noolaanshaha iyo wax wada qabsiga marka ay la wadaagaan su'aashan kugu noqonaya kale waxa weeye hadaba ugaaska beesha gadabursigu kolka waxa lagu xulan jiray ninka karti hufnaan daacadnimo يعني صفات كي وجونا سنة مثلا هو صفات مثلا وده حميد أو مثلا دين الإسلام كأي أدو حجسه أي اللي جو حلنجري وجاس مركا وحانجري دحلتويو مركا النقطة أبوه إنك يسا مركا نقنجري مركا إمكا تحناها أما سلسلة دا وجاس كان جذا بورسي وحي ما أنت هلك حفلتنا إنه هلك نقص ما إنه دبي waxa weeyaan ugaaskii 17aad hadii aan magacyadooda ugaasyadaas wax kaaga sheego ugaaska koowaad wuxuu ahaa waxa la oran jiray ugaas cali makaahil marka wuxuu qabtay xukunka ama uu ugaas noqday 1607 wuxuuna hayay ilaa 1630 marka macnaheedu 30 sanadood buu isagu xukun gacanta ayuu hayay teedna kolkuu isagii hooyday waxa kala haray ugaas cabdi ugaas cali oo inakisi ah ayaa kala waxday haddana waxa la wareegay markuu isaguna tiisi u timaday ilaa qofka binaadinka waari maayo wala soconaya inakisi baa isna kala wareegay oo ugaas xuseen ugaas cabdi loonan jiro isna 1664 ayuu qabtay kolkuu 1665 ayaa waxa hadana la wareegay ugaas Cabdulle ugaas Xuseen deedna isaguna waxay ilaa 98
haddana waxaa yimiday kolkuu hoyday ugaas nuur ugaas cabdille ayaa haddana soo baxay mar labaad haddana waxaa soo baxay ugaas hirad oo 1730 ilaa wuxuu isaguna xukunka hayay 1750 haddana waxaa yimiday ugaas shirdoon ugaas hiraab uu hoyday Soomaa marka waxa isna inankiisa markaa qabsaday markuu ugaas shirdoon hoydayna waxa soo baxay oo xukunkii la wareegay oo ay mujtamacii bulshadii ay soo dooratay ugaas samatar ugaas shirdoon haddana waxa ku xigay ugaas guuleed haddana yani kugu istii badan haddana waxa ku xigay ugaas rooble haddana waxa ku xigay ugaas nuur ugaas rooble mar labaad waxa soo noqday magacii rooble ugaas nuur ayaa markii dambana haddana qabtay haddana waxa isaga ku xigay ugaas cilmi warfaa haddana waxa qabtay ugaas cabdi ugaas cilmi haddana waxa soo baxay markaa oo taariikhda nimanka cusub ee aynu nimanka joognaa ugaas doodi oo ku dhintay maxay gacanta xabashada haddana waxa yimiday markaa ugaas rooble ugaas doodi markaa cabdirashiid oo maanta aynu halkan maxay ku soo dhaweynaynay ayaa markaa kulkii aabihii hoyday isaguna markaa uga dambeeyay markaa ninkan oo imika da'diisu aad u yar tahay ay aqoon badanna leh mutacalima ayay markaa beelihii markaa mar labaad maxay ahayd halkii aabihii ay u calama saareen deedna imika wuxuu ku jiraa oo wareegan dadka isbaro inuu dadka sidii uu ka soo saaro maxay ahayd boqolkii nin inuu dadka fahamsiiyo ugaasku inuu yahay calaamad ah inuu inay dadku unity yeeshaan midnimo yeeshaan saa ummadooda kale ee walaalaheeda Soomaaliyeed ay ula jaan qaadaan oo ula wadaagaan nolol cusub taasi markaa waxa isagu hadafkiisu yahay inta badan in Soomaalidu reer waliba ama gurub waliba ama xisbi haday noqdaan inta dadku ay sahabayaan oo meel noqdaan inay isku soo yimaadaan dad hufan oo reeraha Soomaaliyeed ka soo baxay dadna halka ay dib uga jaan qaado midnimadii Soomaalida waxa hanshii Soomaalida sharaftii iyo karaamadii indii loo soo celiyo marka ugaasku wuxuu nagula dardaarmay inuu socodkiisu yahay inuu hogaankii la shaqeyn lahaa sidii loo abuuri lahaa in xeerkii wixii ay haystay dhaqanka soo ahaan jiray in dib loo nooleeyo loo xoojiyo in cilaaqo jadiida ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay lala sameeyo marka dadnimadii Soomaalida in dib loo soo celiyo ayuu doonayay aad iyo aad baad u mahadsantahay Cumar Aadan aan kaaga mahad celinaa informationka faraha badan leh aad nasiisay Cumar Aadan waa just aad iyo aad dadku maasini Royal TV-na waxaan ku ambaleeynaa arrimaha bulshada ay isku xoojinayaan marka aad baan ugu faraxsanahay maanta hawlshii aad doorka aad ka qaadateen marka waxay la tahay in waa khayr ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo kordhay ninka dhalinyarada ee madaxiisu furan yahay midnimada iyo danta guud u dadaalaya marka waad mahadsantihiin daawadayaal saad u arkaysaan ba imika halkan waxay la taagan Najiib Cabdalle Ismaaciil oo ahaa directorka ama isxiriiriyaha xafladan quruxda badan leh sida fiican loo soo agaasimay ee lagu soo dhaweynayay ugaaska beesha Samaroon isla markaana oo uu yahay Najiib sekretariga jaaliyadda ku nool dalkan istaga Imaaraadka Carabta ee Samaroon Najiib ku soo dhawo telefishinka caalamiga ee Royal shucuurtaadu maanta say ahaydna bal wax nooga sheegi karaysaa aad iyo aad baad mahadsan tahay TV-ga Royalna aad iyo aad buu mahadsan yahay anu haddaan wax yar kaaga sheegay shucuurtayda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinka uu noo yimiday ugaaskayaga qaaliga ah ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi ugaas Rooble waxaanu filaynay oo annaga uun maahee ummadda Soomaaliyeedba nagagana dayato ugaasku waa hogaankii isku xidhayay ummad marka in naga maqnayd oo muddo hadduu noogu yimid oo annaguna raalli ugu nahay aanu ku habbi ku nahay oo aan doonayno in isku imaatin wanaagsan oo fiican oo midnimo leh wax wada qabsi leh wax wada tashi leh ay noo bilaabanto imaatinka uu noo yimiday mar alla markii uu ka soo baxay ee Canada ugu horeysay waanu ku farxnay waanu ku riyaaqnay imaatinka uu Imaaraadka noogu yimidna wax weyn ayay noo tahay oo ina tusaysaa waxaan filanaa in aanu halkaa anaga horeba uga wadnay in isku imaatin iyo isku tag aw isagu leader nooga bilaaba oo isku teega iyo sii xoogeeya
أو نو نقض ما دام وحوي ما أنت ومدهني سومالية دورن إلهي نوال بمشي ساكونا جرجارها كونا وناجيو لكن وينو كلا داتنا وحا كلا داتنا وحوي هو جان الآن با إن دبتي هو جان الآن تا إن دبتي أيو مثليا وجاس عبد الرشيد إنه النقضه وجاس إسقى للضبط قالوا لقى فائدته dadkuna la shaqeeyaan annaguna xubnaha ummadda Samaroon iyo ummadda Soomaaliyeedba kamid ah baanu nahay marka inaynu sidaa isku shaqeyno dadkuna hoggaan hadaan ilahayn wax ma wada qabsan karaan waxna ma wada tarsan karaan marka silsilad isku xidhan oo dusha sare mafaatiixdeedu kaga xidhantuu ugaaska yahay ayay noqon doontaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay waxaan uga baryaynaa inay sidaa iyo si ka daran nagaga dayato annagana ilaahay khayr nagu siiyo ku bilowno oo isaan noogu socoto aad iyo aad baan noogu faraxsanahay waad mahadsantihiin TV-ga Royal aad iyo aad baad waqti fiican noo siiseen waa aad iyo aad baan idinkana sharafta iyo sidaad noogu soo timaadeen aad ku sharfantihiin dadkii noogu yimid ee halkaa nagala soo qayb galay iyo wixii hawsha ila waday ee ila joogayba aad baan ugu mahadnaqayaa walaalahayga ugaaskana waxaan leenahay sidaa aad noogu timideed nuurka noogu noqotay inuu ilaah nooga dhigo mid ifkiisu wada gaadho dadka oo dhan daawadayaal xafladii sida weyn loo soo agaasimay ee lagu qabtay dalkan Istaga Imaaraadka Carabta lagu soo dhaweynayay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ee ka dhacday dalkan Istaga Imaaraadka Carabta inta ayay ku dhantahay daawadayaal intaan dib u kulmi doono anigoo Axmed Saciid oo idinkaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh